kulanti wanaagsan muuqaalkayaga maanta waxaan uga warrami doonaa taariikhda badaha Soomaaliya anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idin lana socodsiinaya keena dabeecadiisa micnaadaad ku dhaxqado labada wabi ee dureera dalagaci wanaagsan Soomaaliya waa mid ka mid ah wadamada ugu qanisan xagga kheyraadka ee dunidan aynu ku noolnahay Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer badweynta Afrika dhulkeeda waxa uu ka kooban yahay badana dhul taag ah ee leh buuro iyo dhulka banaan ee siman cimilada dhulka Soomaaliyana waa mid kuleyl iyo qabow toona aan ahayn waxa ay ka mid tahay nimcooyinka wadamada caalamka kale aysan haysanin waxaana wadankeena Soomaaliya lagu tilmaamaa inuu yahay dhulka ugu dhaqamada badan ee Afrika ku dhawaad 85% dalka Soomaaliya waxa ku nool qoomiyad Soomaali ah halka 15% ay yihiin qoomiyada kale ee ku faracmay dhulalka Soomaalidu degto tirada ugu badan ayaa lagu tilmaamaa in ay waqooyiga deganaayeen halka qaybo kale ee iyaguna laga tiro badan yahay lagu sheegay in ay koonfurtu ku noolaayeen xiliyadii hore Soomaaliya waxa ay ahayd xarun ganacsi oo muhiim u ah dunida waana mid ka mid ah qaybihii ugu muhiimsanaa ee dhulka Buntu waxaan uga soo warramay barnaamijyadii hore waxa ay leedahay dekado qadiimi ah kuwaas oo ay badmaaxiyaashii Soomaalida uga ganacsan jireen boqortooyadihii hore ee dunida soo maray waxa ay inta badan dhoofin jirtay beeyada ama fooxa xawaashka xabagta alwaaxda iyo malmalka iyo waxyaabo kale waxayna u dhoofin jireen dhulka Baabil Farisiyiinta iyo wadamo kale ee lahaa xukuumado u dhisan qaabka boqortooyada ama monarchiga inta lagu guda jiray xilligii saldanadii Ajuuraan waxa ay xeebaha Marka Muqdisho Baraabe iyo Hobyo halkii kheyraadka looga dhoofin jiray Hindiya Faris Masar Burtaqiis Shiinaha iyo dhulal kale ee Carbeed qarnigii 16aad doorta Barabusa waxa uu xusay in maraakiib badan oo ka timid boqortooyada Cambaaya ee Hindiya ay u shareecdeen Muqdisho iyaga oo waday dhar iyo dhir udgoon taas oo badalkeedana ay ku heleen dahab dhuux iyo fool maroodi isla muddadaas ganacsato Soomaaliyeed waxa ay u shareecdeen Qaahira Dimashq Moja Mombasa Adan Madagascar Hyderabad iyo jasiiradaha badweynta Hindiya ee Badda Cas halkaas oo ay ka dhisteen bulshooyinkii Soomaaliyeed marino ganacsi waagii hore iyo casrigani dawladihii kala dambeeyay ee Adal iyo Ajuuraan ayaa ka bilaabay Soomaaliya ganacsiyadii badda ee ay dhisteen boqortooyadihii hore ee Soomaaliya qarnigii 19aad ee boqortooyadii Gobroon gaar ahaan waxa ay dib u soo kicisay ganacsigii badda ee Soomaaliya muddadaasi wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeralayda Soomaalida ayaa u badnaa suuqyada Carabta waxaana xeebaha Soomaaliya loo yaqaanay xeebaha badarka ee Yemen iyo Cumaan keena dabeecadiisa dabayshiyo cimiladiisa badweynta dhane ku dayran kalluunka baalanaya dubaxadu siday u taalo siday macdantu dangigo siduu arigu dareero uga dhaaysta wanaysa baayac mushtariyaashii Soomaalida ayaa sidoo kale ka shaqeyn jiray warshadaha xeebaha Eritrea agabka tiknoolajiyada qadiimiga ah ee Soomaaliya waxa kamid ahaa markabkii weynaa ee ganacsiga ee la oran jiray Badan waana markabkii ugu horeeyay ee ganacsi ee ay Soomaaliya lahayd wuxuuna ahaa markabkii ugu dheeraa abid ee geeska Afrika Botayla ama Bandarkoor waxa ay ku taalaa tog dhanka bari kaga beegan magaalada Qandala ee qadiimiga ah una dhaxaysa Gardafuul iyo Boosaaso waa halkii ay ugu badnayd beeyada tayadeeda aadka u sareyso ee la dhoofin jiray dekadan ayaa looga dhoofin jiray xanjada iyo fooxa wadamada kale ah Faris dhulalka Carabta iyo Hindiya labada wabi ee dureera dalagaci wanaagsan abuurka ku daadi weeyo kheyraadka ka doona weeye siduu geelu hawdu daaqo laduna u diinahiyeyso Daamo waa magaalada kadeed ee qadiimi ah kuna taala waqooyiga Soomaaliya
dekedan ayaa la magac baxday suuqii beeyada. waxa ay leedahay magaaladan farshaxano qadiimi ah oo ay ka mid tahay dhismayaasha dhoobada ee Roomaanka, dhismayaasha dhagaxa qalalan kaas oo dhulalka Carabta xiliyadii reer Caad ay dhisan jireen, nooca dhismaha dhagaxa qalalan kaas oo laga soo saaro dhismayaashiisa farshaxanada. dhagaxaan taagan, masaajido iyo taalooyin qadiimi ah ayaa ka mid ahaa dhismayaasha magaaladan. labada wabi ee dureera dalagaci daw wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawdu daaqo laduna u diinahiyeyso. dekada Gondal waa magaalo qadiimi ah ee ku taalay koonfurta Soomaaliya, waxaana lagu tiriyaa inay ka horeysay dekada maanta loo garan og yahay Kismaayo. Malabo waxa ay ahayd dekad qadiimi ah ee ku taalay dhulka Somaliland maanta. magaaladani ayaa waxa ay ku taalay halka maanta loo garan og yahay Berbera. waxa ay ahayd xubin ganacsi oo muhiim u ah badda cas iyo ganacsiga badweynta Hindiya. sidoo kale magaaladan waxa ay lahayd suuqyo sarifka lacagaha qalaad ee xilligaasi dunida ka jiray, taas oo ay baayac mushtarada Roomaanka ka sarifan jireen. dekadan ayaa laga dhoofin jiray fooxa iyo malmalka. Mosilon ama beydkii Gariiga waxay ahayd magaalada Boosaaso ee maanta loo garan og yahay, taas oo ahayd dekada kaliya ee gacanta ku haysay xaddiga badan ee ganacsiga badweynta Hindiya, iyadoo oo ay adeegsan jirtay maraakiib waaweyn. Mundus waa magaalo qadiimi ah ee ku taalay gobolka Sanaag ee Somaliland maanta. waxa ay dhoofin jirtay dekada xabagda iyo qorfaha udgoon ee shaaha, taas oo loo dhoofin jiray dhulalkii ay isku maamuleysay boqortooyadii Gariiga. Obone waa magaalo kaga taalay geeska Afrika ee dhulkan qadiimiga ah ee Soomaalida. magaaladan ayaa suurtagalnimada tixraaca taariikheed lagu sheegay in lagu tiriyo dhulka Tanatjar ama Buntu ee maanta loo garan og yahay Puntland. dekada magaaladan ayaa u dhoofin jirtay xawaashka wadamada Malaysia, Hindiya, Indonesia, Masar, Faris iyo meelo kale, taas oo ay kaga bedelan jirtay alaabo kale oo xiriir ah. Sarabiyon waa magaalo dekadeed ee qadiimi ah, taas oo maanta loo garan og yahay ama markii dambeba noqotay Xamar. taariikhyahanada arkeolojiga ee Soomaaliya ayaa magaaladani ku sheegay inay ku taalay agagaarka Muqdisho iyo Warshiiqta maanta ee koonfurta bartamaha Soomaaliya. Sesaya iyaduna waxay ahayd magaalo dekadeed ee ku taalay waqooyiga Soomaaliya. qarniyadii dhexe dekadihii Soomaaliya iyo magacyada ku soo cusboonaaday waxa ay kala ahaayeen dekada Baraawe waxa ay marin ganacsi u ahayd boqortooyadii Ajuuraan. dekada Berbera waxa ay xiriir toos ah la lahayd boqortooyadii Tanga ee dalka maanta loo garan og yahay Shiinaha. dekada Gandarsha waxa ku soo shareecan jiray maraakiibta yaryar ee Hindiya, Carabta, Faris iyo wadamada bariga fog. dekada Hobyo waxa uu maamulkeeda hoos tagi jiray boqorkii Ajuuraan. waxa ay ahayd marin u muhiimsanaa xujayda ee Makka. dekada Kismaayo sidoo kale loo yaqaano magaaladii walaalaha, waxa ay xukunkeedu u hoostagi jiray boqortooyadii Gabon ee saldanadii Galadi. dekada Muqdisho magaalada Muqdisho waxay ahayd magaalada ugu muhiimsanayd qarniyada dhexe ee bariga Afrika, iyo waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee bilowdo ganacsiga dahabka ee bariga Afrika. dunidu way
ka hor xilligii colaadaha sokeeye Muqdisho waxa ay sii wadatay maqaamkeeda taariikhiga ah ee magaalada dekadaha bariga Afrika hogaamisa